intii soo dhaweysay maanta cadceedda timid iyo intii shalay ku rafaaday cadceedda labaduba waan salaamayaa waana ka raali gelinayaa wixii dhacay ugu horeyn sida dhaftan caloosha ku dhigan lahaa haddana waxaan soo dhaweynaynaa insha Allah tacaala diyaaradii soo degtay u saarnaa fanaanka Cali Dhaanto oo xagga dambe taagan insha Allah tacaala la socod wanaagsan waa ka fadlan subscribe ka naga iloobin maanta guri waa laga soo baxay waxaa la joogaa Grand Wiwa International Airport way ku dhowranayaano nakuma dhaafi karaaye dhole dhaxda mees qabsanaaye dhole السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub wax badan YouTube waxa uga barateen inaan ka furo qol laakiin maanta airport-ka jooga waxaan soo dhaweynaynaa brother Cali Dhaanto oo soo degayo hadduu ilaahay yiraahdo goordhow ay Cali Dhaanto la soo dhaweynaya dhammaan fanaaniinta deegaanka xaggan iskugu yimid halkaan waxa ila jooga kaalka marday brother waxaan jooga Anzari Xosh ala soo dhaweeyo Anzari YouTube-kiisa waxa idin soo dhigayaa description-ka idin soo dhigayaa xaggan waan soo saarayaa la soo dhaweeyo Anzari Cali Dhaanto maanta soo dhaweynayna ay maxaa leedahay dadka daawanaysan waa Riiraash Films waa dhawaan badan okay hada waa cabaya taagante cabay YouTube ma dhex muuqan dadka kulay waa aragtaan waa fanaan waa wariye waxaan salaaminaa dhammaan taageerayaasha iyo bahda social media ku xidhan Riiraash Films waxaan leenahay malaa'igta in salaanto waxaan kale in leenahay wiilka ka hagaajiya bal subscribe iyo like ka hagaajiya leenahay ay soo dhaweynta maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa Cali Bashiir Cali Cabdi Dhaanto 2013 ka hayaamay dalkan Ethiopia isla markaana ambad ku tagay dalka Sweden ee qaaradda Yurub Cali waxa uu soo noqonayaa 8 sano kadib maanta 26ka bisha 8aad 2021 Cali Dhaanto waxaan ku soo dhaweynaynaa oo loo taagan yahay garoonka diyaaradaha ee Garowe International Airport Cali Dhaanto waxa boholyow iyo hilow badan qabad bulsho ka baaday inay ciyaarto dhaqankii iyo dhaantadii uu isagu hal doorka u ahaa ee uu ku soo caanbaxay walow ay jireen fanaaniin badan oo dhaantada ciyaari jiray intii ka dambeysay dhaantooyinna samayn jiray haddana Cali wuxuu ahaa xiddigii dhaantada ee waqtigaas soo caanbaxay reejigjiga waxay si diiran u soo dhaweynayaan oo ay leeyihiin soo dhawow Cali oo dhaantadii aad nagala tagtay mar labaad waxaan rajaynaynaa inay noo bilaami doonto yartan dheereey haddaad dhunta mari lahayd sida dheeftaan caloosha ku dhigan lahayd sida dhoolka hilaaca ama dhaysta darurta dhexyaray dhaayahaygu way ku dhowranayaano akuma dhaafi karaye dhole dhexda mees qabsanaaye dhole aad u baasaya cabay waxaan galaynaa muuqaaladii soo dhaweynta waxaan tusinayaa dhaanta aad loo ciyaaraya insha Allah tacaala la socod wanaagsan haddana waxaan garabkayga taagan walaashay Zainab Xaga fanaanad dhaantada caan ku ah mid kale kulay muuqaalkii hadda ugu dambeeyay ee filimka wixii jaceylkana waa gabadhii wiilka ubaxa indhaha kaga dhafatay ay xumeysay okay Zainab waa fanaanad deegaanka Soomaalida waliba qaybta dhaantada caan ku ah silsilado badan oo dhaantooyin ka qayb qaadatay Zainab marka hore soo dhawo waan dhawahay okay maanta Zainab waxaa isku soo diyaarisay isku soo qortay oo quruxda badan ee ka muuqato oo dhaqanka Soomaaliyeed maanta waxaan samaynaynaa wiil nagu qaaliyaan soo dhaweynaynaa walaalkay Cali Dhaanto boqorkii dhaantada
ayaan soo dhaweynaynaa aan halkan u nimidnay maxay ahaydey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan walaalkan soo dhaweyno waayo intaa in ka badan ba xaq uu leeyahay maasha Allah ereyada aad fanaanka ku soo dhaweynaysaan maxaa kamid ah waxaa kamid ah bulshaweynta oo dhan baa ku soo baxday boqorkii dhaantada uu bariyo sama ku yimo marka soo dhawo baan ku leenahay walaalo welcome gacmo furan ku soo dhawo qalbi furan horta dadka garoonka Jigjiga ma tusnaa maanta handhuudiyo dhaclaha xidhano dhammaystiran kaalina datume gobolka nogob gobolka city gobolka faafan aad ka soo dhaadhacdeen dhulka hoyaad dhandhoolanay ka soo dhaadhacdeen laguna halki lagu dhale dhida lagu habiya dhaxya dhuuha dhulka hoyaad dhandhoolanay ka soo dhaadhacdeen urlafberde ha urraxaydha ha shabeelle ha aad ka soo dhaadhacdeen dhulka hoyaad dhandhoolanay ka soo dhaadhacdeen halkan waxaa diyaar ku ah kooxihii dhaqanka mas-uuliyiinta deegaanka dhammaan shacabkii iyo dhallinyaradii kulli waxay u taagan yihiin soo dhoweynta fannaankeenna weyn cali bashiir cabdi cali dhaanto fanaanka shalay bay idinu magaalada Jigjiga soo caga dhigto duulimaadkiisa wax yar oo ka khaldamay ayuu shalay dib ugu dhacay kadib markii xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horeeyay dadaal badan ka samaysay arrintaas dib loo saxay maanta 10 subaxnimaan joognaa garoonka Garaadwal International Airport oo soo dhaweynta u diyaarnahay waxa halkan ku sugan mas'uuliyiintii deegaanka ugu sareysay qaybo kamid ah kooxihii fanka qaybaha kala gedisanay bulshada ururada dhalinyarada bahda saxaafadda oo isku duuban dhammaanteeba waxaan soo dhaweynaynaa fanaanka saaka waxaan leenahay welcome cali dhaanta Jigjiga ku soo dhaweynaynaa maanta soo dhaweyn aan loo kala harin dhammaan fanaaniinta deegaanka Soomaalida oo halkan isugu wada timirayaan waxaan soo dhaweynaynaa walaalkay saaxiibka cali bashiir cali dhaanto waxaan ku soo dhaweynaynaa boqorkii dhaantada cali bashiir cabdi cali wuxuu ahaa ninkii dhaanta muusig loo tuma asagu deegaanka Soomaalida gudihiisa ninkii bilaabay buu ahaa saaka de magaalada Jigjiga oo dhan baa xaq u soo ruqaasatay hadduu fan tahay haddii mas'uul yahay haddii maxay ahayd shacabyiin maanta garoonka la tuman yahay ciidan bushar waxa kaday waxaan rabnaa maanta inaan ku wada jabino bulshaweyntii deegaanka oo dhan ku soo baxday boqorkii dhaantada uu beledkaadii Jigjiga baryasaba imow ayaa maanta la wada leeyahay yarta dheereeya daadunta maariila sida dheftaan caloosha ku dhiigaan lahaa haddana waxaan soo dhaweynaynaa insha Allah tacaala diyaaradii soo degtay uu saarnaa fanaanka cali dhaanto oo xagga dambe taagan insha Allah tacaala la socod wanaagsan waa ka fadlan subscribe-ka naga iloobin maanta guri waa laga soo baxay waxaa la joogaa Garaadwal International Airport way ku dhowranayaano nakuma dhaafi karaaye dhole dhaxda mees qabsanaaye dhole kuma dhaafi karaaye dhole dhaxda mees qabsanaaye halaale asida dhalka hilaaca ama dhaysta daruurta dhacyareyda yahaygu way ku dhowranayaano waxaa sharaf noo ah anigoo ku hadlaya magaca xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad deegaanka Soomaalida in aan maanta halkan ku soo dhaweyno cali bashiir cabdi cali dhaanto oo ah nin dhaqan ah deegaanka Soomaalidana in badan ka shaqeeyay qurba joogna noqday baryahan dambe oo dalka ka cararay cadaadiskii iyo dhibkii iyo mushkiladii jirtay dalka uga cararay waxaan ku faraxsanahay dowlad deegaan ahaan inaan ku soo dhaweyno maanta meeshan farxad aan la koobi karin aan dareemayno iyadoo dadkii dalkan cadaadiska iyo dhibka uga cararay
ee nafafyaalkooda kala baxsaday nafafyaal kalena lagu waayey qayb ka mid ah aan maanta halkan ku soo dhaweyno iyadoo cali uu ahaa ninkii dhaqanka halkan udubka u dhigay oo aad wada garanaysaan waxaan leenahay cali soo dhawow dhulkaaga oo nabada oo aan cidna maanta ku jujuubaynin cidna ku cadaadinaynin cidna ku dhibaynin ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshooyinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka intii soo dhaweysay maanta cadceedda timid iyo intii shalay ku rafaaday cadceedda labaduba waan salaamayaa waana ka raali gelinayaa wixii dhacay ugu horeyn marka labaad waxaan leeyahay wasiirka waad mahadsan tahay wasiir adiga iyo inta wasiirada kale meesha fadhidooda qof walba waxaan ku salaamayaa maamuuskiisa iyo meesha uu fadhiyo waan la socdaa warbixintan hadda aad ii sheegtay dalka waan ka maqnaa mooyaane dhagtaydu kama maqnayn wax badan oo la qabtay waan la socdaa iyo sida uu xaalku yahay in isbedel dhacay oo isbedelkiina siyaabo badan looga faa'iideystay xorriyatul qowlka ha ugu badnaado oo ugu muhiimsanaaye waan la socdaa waxaana leeyahay ilaahaygi keenay baa ku mahadsan intii ka sii hoos qaaday iyadana wax meel gaarsiisayna way mahadsan yihiin inta markaan ka soo gudbo shalay caqabadii yareed ee meesha ka dhacday oon rabo inaan uga faa'iideysto meeshan waxaan anugu sii ogaa laakiin aan dhayalsaday oon islahaa maadaama aad muddo ka maqnayd eega waxaan u malayn dhici mayso warqad yar oo ay hadda ka hor migrationku iyo qoreen baa jirtay oo 2013 aan mar la soo celiyay aan ku maray laakiin tii baa luntay 8 sano ma aanan islayn markaad soo noqotay hadda warqadii yareed baa loo baahan doonaa laakiin magacu wali meesha uu iska yaalay marka nin walbana isbedelku markuu dhacay intii hor taalay ee dhibahayd uu nin walba is yiri iska hor qaaday tii aniga gaarkii ahayd ciidamayn raadinayda way suugaysay marka anigu bay tahay inaan hadda iska hor qaado haddii loo yiraahdo anigu meesha warqada ka timid ku celin doona marka shalay dhibkaas waa cid gaar ah aan ku eedeynay ma jirto waana ka bari baan leeyahay xukuumadda hadda jirta shalayna maynan ayagu warqada ay dhigin oo dhibka shalay dhacay ayagu mas'uul kama ahayn waana uga mahad celinaya airportka anoo ku jira inay wasiiradii saaxiibada ahaa iyo madaxweynaha ugu horeeyay inay soo waceen oo airportka dhexdiisa waxa la waxay qaban kareen inay shalay ay soo geeyeen culayskooda commissionkiina loo soo diray magaalada sabab waxa la yimid marka waxaan leeyahay xukuumaddu inta way ku mahadsan yihiin waxaan kala rabaa oo doonaya inaan la hadlo dadka social media dadku way kala duwan yihiin siyaabo badan bay dad uga falceliyeen aniga hadalkaygu ama socodkaygu ma daara shakhsi keligii nin wadankiisa ka maqan baan ahaa wadankaygii baan imid oon u soo noqday oon rabaa inaan bal muddaan ka maqnaa inaan soo aado xaq baan u lahaa inaan baxo soo noqdo wixii caqabad ay haysatay brevedana haddii inaan xalliyo cid ila xallin karto in la ila xalliyo baa muhiim ah tii hore tagtay ama dhibkeedii iyo waxeedii aniga hay dhibaatayso laakiin muhiimadaydu ma aha inaan dad taageersan oo taas in ayaga dur haya haddii taageersiin iyaga u taala laakiin aniga wixii dhibay ay sheegay shalay dawada weydeen qofku markuu dhib gaaro kor looma hadli karin oo maydan ayaga naftigooda way ogaayeen haddii waanu shalay waan qarsanay oo laakiin waan ku maraynay talaabadaasi baan u maraynay laakiin eega heer waxa la gaaray la hadlo la yiraahdo oo dhibaatada meesha wali ii taala marka xorriyatul qowlka imaaday in afka la isqabta ma aha marka aad baad u mahadsantihiin waan idinka mahad celinaya imaatankiina si gaar waxaan rabaa in ayagana ugu mahad celiyo wasiiradu ayagu way salaamayeen hal baan u gacan qaadi doonaa waa ila joogaane fanaaniintii aan marka hore meeshan ka soo askumay ahayd iyo dhalinyartii dhaqanka ee meesha maanta cadceeda shalay ku rafaaday waxaan leeyahay waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad inkastoo waagi aan idinka tagay sidan aydan u burburrayn laakiin kooxda waxaan leeyahay waad salaamantihiin aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal insha Allah wayna hoolkeeni si gaarana waan idin salaamayaa bahda media inuu meesha wax isbedelay waxa ku xad waxaan oo kaamirada TV-ga waxaan oo kaamirada meesha horta waxaan oo magaca meesha way kama jirin marka alxamdulillah rabbil caalamiin media-na waxaan leeyahay war saxan oo fiican oo maaragtay ummadda wax u tara gudbiye insha Allah hadii loo yiraahdo ayaanu noqon hebel baan wax ay ka soo qaadanayna ku sii deeyni social media Soomaalidu saas u badan yahay yaanu soo noqon baan rajeenayaa media laga cabsado oo wixii runana sheega wixii beenana reeba noqda oo meel saxan loogu yimaado marka aad baad u mahadsantihiin waana joogaa insha Allah hadii loo yiraahdo inaan deegaankan inaan soo wada maro waan jecelahay insha Allah hadii loo yiraahdo gobolada tago wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh halkii lagu dhaleedayda lagu habiyo dhaxyadu kulka hooyaad dhowranay ka soo dhaadhacday
doolo gobolka jarar gobolka liibaan waad ka soo dhaadhacdeen dhulka hooyaad dhundhuulanay ka soo dhaadhacdeen naalki lagu dhalee ciida lagu habiya dhaxya dhuubo dhulka hooyaad dhundhuulanay ka soo dhaadhacdeen